الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي لبي طبنات يا كتاب كأن حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم رحمه الله قيبتان إن شاء الله وحان كتابك كسو قبقبين دونا قيب وحوك هذا ليا صفاتك يتلمامها دمرك أهل الجنة أما هالنقضان حور العين ilaahay subxaanahu watacaala jannada ku abuuray ama ha noqdaan dumarkii adduunka oo alla subxaanahu watacaala jannada uu gartay iyo masaa'il ee ku tacalluqda labadoodaba oo yaa fadli badan dumarka xurulciinta iyo dumarkii adduunka haddii ay jannada galaan. waxaa kaloo ka hadlaynaa insha allahu tacaala masaa'il iyaduna ku tacalluqda dumarka iyo haddii ay ninkoodu geeriyoodo kii hore iyo kii dambe iyo tiiba aan ninnaba yeelanin jannada ileen qof dooba ma jira ee qof walba reer buu yeelane keebaa nin u noqon doona insha allahu tacaala. allaha raxmaanka oo raalli kaa noqda iyo jannadiisa oo lagugu marti qaado waa qaayaha iyo yoolka qof kasta oo mu'mina iyo gabadh mu'minada ay raadinayaan. qofku markuu adduunka uu ka baxo haddii uu ku guuleysto raalli ahaanshaha rabbi waa bishaaro weyn oo ilaahay subxaanahu watacaala bilkhayri kulli uu ku bishaaraysanayo. haddii uu jannadiisa alla subxaanahu watacaala uu siiyana gadaasheed wax kale uu weydiinayaay ma jiro. maxaa jira? wax walba ayaa ku jira fiimaa waxayna indhuhu arkin, dhaguhuna ayna maqlin, qalbina aan weligeed kusoo dhicin. waxaa u xasilaya uu helayaa wax alla wixii uu tamaninayay qofku adduunka intii uu joogay iyo wixii kusoo dhici jiray wuxuu rabay oo dhan ayuu helayaa. dayib wax alla wixii kusoo dhacay oo ishtihaa iyo maaragtay doonid ahaa rabbi wuxuu leeyay walakum fiiha maa tashtahii anfusukum walakum fiiha maa taddacuun nuzulan min ghafuurin raxiim. haddaba wa min axsani maa tashtahihi lanfus waxyaabaha ugu fiican oo naftu ay ishtahayso fil aakhira ragga oo kale marka la yidhaahdo waxaa kamida dumarka jannada ayaa kamida waxay naftoodu ay ishtahayso. kuwaas ama ha noqdaan alxurulciin ama ha noqdaan dumarkii adduunka oo ilaahay subxaanahu watacaala jannadiisa uu geliyey. min xikam illaahi subxaanahu watacaala xikmadda waxaa kamida ilaahay xikmadiisa alle ma uusan sheegin dumarka iyaga waxa rag ahaan la siinayo. muqaabilka ragga waa la sheegay laakiin dumarka iyaga lama sheegin. arrintaas waxay yidhaahdeen culimadu dumarka min dawaaci waxaa kamid ah waxyaabaha lagu yaqaano alkhajal wa shiddatu alxayaa. xishoodka ayaa ku badan wayna ka yaxyaxaan oo way ka xishoodaan. haddii la yidhaahdo intaasaad nin baad leedahay iyo fulaan iyo wixii ku saabsan gogosha iyo howlahaas oo dhan waa howlo ay dumarku ay ka xishoodaan. marka shay ay ka xishoodaan ma noqonin baa layidhi shay lagu jacayl geliyo oo loo sheega ma noqonin. haddaba allah subxaanahu watacaala markuu leey walakum fiiha maa tashtahi anfusukum ayaa waxaa kamida waxyaabaha naftoodu ay jeclaato in dumarkana la siinayo raggana la siinayo. laakiin haweenka sidaa aan sheegnay waxaan loo sheegin baa layidhi dhowr arrimood ayaan loo soo qaadin oo mid waa xayahooda iyo xishoodkooda ayaa aada u badan weyne. arrintaana waa arrin ay ka qajilaan oo aynan maaragtay dumarku ayna sheegin. talabaad waxaa weye alla waxa uu sameynayo laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun. ilaahay lama weydiinayo subxaanahu watacaala waxa uu sameeyo. tan kale waxaa weye shawqu lmar'ati lirijaal, yacni haweenka hilowga ay u hiloobaan ragga ma aha kan raggu ay u hiloobaan dumarka oo kale. sidaas daraadeed ayuu alla subxaanahu watacaala raggii ayuu ku dhiirigeliyay dumarka inay helaan jannada si ay ugu shaqaystaan. falmar-a iyadu waxaa layidhi haweenku waxyaabaha ay aadka u xiiseeyaan waxaa kamida aziina sida quruxda xagga dharka ah iyo dahabka iyo waxyaabaha la isku qurxiyo. taasaa kamid ah. taasaana iyaga jannada xaggeeda lagu sheegay oo awaman yunashau filxilya markii lalahaa yacni waxyaabaha dumarka lagu qurxiyo. marka iyaga taasay niyada ku hayaan, ragguna dumarka ayuu niyada ku hayaa. asheekh ibnu cuthaymiin
oo fasiraya aayaadkaas iyo umuurtan ka hadlaysaba wuxuu lahaa haddii alla subxaanahu watacaala inamaa dakara allahu azawjaat lilaswaaj, yacnaa alla wuxuu u sheegay dumarkiibaa la sheegay, ragga haweenkoodii baa laga waramay. maxaa jira ragga isaga ayaa taalib ah oo raaqib, isagaa wax raadiya. guurka xitaa marka inta badan raggiibaa wixii raadiya dumarka. sidaas daraadeed baa raggii waxaa loo sheegay dumarkii ay helayaan insha allahu tacaala filjanna. waxaa laga aamusay buu yihi sheekhu dumarkii iyagu ragga noocaasa ee iyaguna inay helayaan, taas oo ah iyada muqtadaha sida arrintu ay keenayso iyo xishoodkooda iyo waxyaabaha ee loo qariyay ayay ka mid tahay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu siinayo. ilaahay subxaanahu watacaala wanaagiisa inagu arsaaqo jannadiisa. wallahu aclam.